Richard Burton iyo farshaxankii uu ka qoray ummadda Soomaaliyeed qarnigii 19aad wuxuu ahaa xilli awoodihii Yurub ay baadigoob ugu jireen isha webiga Nile ay dahrogayeen magaalooyinkii hore. Waxa kale oo uu ahaa xilli ay baadigoob ugu jireen dhul ay ku shaambadeeyaan calankooda ay gumaystaan baan ka wadaaye. Sahmiyayaal badan ayay dirsadeen. Raggaas ay dirsadeen hal nin oo ka duwan ayaa ka soo dhaxbaxay. Ninkaasna waa Sir Richard Francis Burton, askari aqoon-yahana luuqada yaqaan safarra halisa ku dhiiraday. Burton ma ahayn sahmiye iyo danjiriye Yurubiyaana oo keliya. waxa uu salahaa indha soo jeeda dhaga wax weeleeya iyo qalbi doonaya inuu barto wax ka baxsan waxa buugaagta Yurub ay qoreen. Wuxuu ku hadli jiray in ka badan 25 luuqadood. Wuxuu turjumay sheekooyinka Alfa Layl wal Layl ee Carabta dhexdeeda caanka ka. Inta badan safaradiisa caanka ahaa ee webiga Niil ka hor wuxuu u jaleecay bariga Afrika, gaar ahaan geeska Afrika oo ah dhulka ay faraacintii hore ugu yeeri jireen Bunti, dhulkii uduga. Waxa uu soo safray dalka geela, geesiyada, gobonnimada iyo gabyaaga. Waxa uu doonayay inuu fahmo dadka Soomaaliyeed. Muu rabin inuu ka barto afka aqoon-yahanka reer galbeedka, balse waxa uu rabay in la dhaqankooda uu ka barto sida dhabta ah ee ay Soomaalidu tahay. Waxa kale oo uu darsay sida ay iyagu isku arkaan ama isku rumaysan yihiin. Safarkiisii uu dalkeena ku yimi 1854 ilaa 1855 ee uu ka qoray buuggiisa First Footstep in East Africa, waxa uu ka dhigay ninkii ugu horreeyay ee reer Yurub ee gudaha u gala magaalada barakaysan ee Harar, magaalada Soomaaliyeed ee derbiyada dhaadheer iyo gidaarada ilaashamaha leh. Waxa kale oo uu noqday ninkii ugu horreeyay ee soo bandhiga dhaqanka Soomaalida. Buuggiisa Burton waxa uu ku sheegay, Soomaaligu waa nin xor ah, xornimadiisa ayaanu u dagaalamaa. Adigoo maanta xor ma tahay, mise maamulada qabiiliga ah iyo dawladda maqaarsaarka ayaad u adoonsan tahay, mise waxaa tahay kuwa guweysiga Ethiopia ku hoos nool ee sidaa ku qanacsan. Waxa uu Burton yiri, neef kasta oo geela oo Soomaalidu leedahay waxa uu ka joogaa farac hore oo qadiimi ah. Waxay Soomaalidu leedahay ayuu yiri xeer aan qornayn oo ka sarreeya qaanuunada boqortooyooyinka ee qoran. Geesinimada iyo gabyaaga ayuu Soomaalidu ku tilmaamay inay u yihiin laba mataano ah oo ku kulansan. Saylac waxa uu ku tilmaamay albaabka Soomaaliya. Markii Burton cagaha uu soo dhigay Saylac, haddaadan weli tagan ama xog ka haynin Saylac, muuqaalkan halkan kuu soo saaray ka soo baro. Saylac waa magaalo ganacsiyeed qadiimi ah oo laga dhoofin jiray fooxa bari iyo buuraha Calmadow laga soo guro, geela ogaadeen yar lagu dhaqo, adoonta Afrika laga keenay iyo wax kayaabo kale. Markuu Saylac yimid, wuxuu isu ekeysiyay Xaaji Cabdullaahi, ganacsada muslima oo ka soo jeeday Hindiya. Aqoontiisii afafka Carabiga, Farisiga, Hindistaanka iyo baalasha shareecada ayaa ka dhigtay mid dhexgeli kara bulshada isaga oo aan laga shakiyin. Ciddii ugu horreysay ee imtixaanta waxay ahaayeen beesha Ciise oo uu u bixiyey ilaalada xeebaha. Ciise waxa uu ka qoray dad sharafta u tahay xayndaab aan la dhaafi karin, qaran maanso iyo faras fuulidda u dhisan, dad abtirsiinimadu u tahay diin u gaara. Markii uu dhex galay dhulka Ciisaha, waxa uu sheegay in odayadii Ciisuhu ay ku bilaabeen su'aalo iyo baaritaan. Quraanka ma taqaanaa? Cilmiga diinta maxaad ka taqaanaa? Iyo kuwo kale. Burton wuxuu maalin ka bartay cashirkii koobaad. Cashirkaasi waxa uu ahaa in ninka Soomaaliga uu martida sharfo oo uu sooro, laakiin Soomaaligu waa difaaca sharafkiisa kama gamco. Waxa uu u soo gudbay dhulka Gudobiirsiga, tir taariikhi ah oo caan ku ah xeer iyo aqoon. Waxa uu yiri, halkan xeer warqad ku qoran ma jiro, laakiin dawlad geed hoostii ah baa jirta. Waxay ku mahmaahaan buu yiri, geesiye isma kala gaaraan ee geesiye xeer baa kala gaara. Waxa uu sheegay in intii uu dhulka Soomaalida uu sii marayay uu la yaabay geed weyn oo Soomaalidu hoos fariisan jirtay. Waxa uu sheegay in geedka weyn ee qadiimiga ah uu ahaa baarlamaankii dadweynaha. Asaga ayaa haddana ahaa buu yiri maxkamaddii cadaaladda. Asaga ayaa mar kale ahaa gurigii suluxa iyo heshiiska. Waxay yiraahdeen buu yiri, geedka hoostiisa garbaa lagu naqaa, gardarrana waa lagu guntaa. Geedka waxa uu astaan u ahaa buu yiri ilaalinta isirka iyo midnimada qoyska, xeerka iyo xigmadda. Dhulka sare ee Jigjiga ku dhow ayuu gaaray. Wuxuu halkaa kula gulmay Geri Kombe. Waa niman Soomaali ah oo geesiyaal ah. Waxay ku xeel dheer yihiin buu yiri istiraatiijiyada dagaalka. Garaadkoodu wuxuu ku maamulayay tala wadaag, xushmad odayaal iyo fikir wax dhisa. Burton wuxuu yiri, waxa halkan Jigjiga ku arkay dad hal abuur iyo maskax furan leh. Geri la'aantii Soomaalidu harar ma gaadheen. Geri ayaa noqday baalasha uu ku duulayay Axmed Gurey markii uu Abasiin iyo jabiyey. Harar ayuu u sii gudbay. Haddii aadan taariikhda Harar wax ka aqoonin, muuqaalka aan kuu soo muujiyey soo daawo. Wuxuu hadda soo gaadhay oo hortiisa ka muuqda Harar, magaaladii owliyada, derbiye dhaadheer, suuqyo camiran. Waxa uu la kulmay dad ajaanibta neceb. Shaki iyo cabsi ayaa hadheeyey. Amiir Axmed bin Abubakar ayaa weydiiyey su'aalo uu ka naxay. Waxa uu amiirku weydiiyey, yaa tahay? Yaa ku dhalay? Maxaad ka taqaanaa diinta? Aqoontiisii afka Carabiga iyo diinta Islaamka ayaa badbaadisay. Laakiin waxa uu wajahayaa 10 maalmood oo cabsi iyo geesa eeg ah. Burton
waxa uu yidhi Soomaalidu waa dadka ugu xorriyadda jecel Afrika. Xornimadoodu waxay ku raadiyaan seef ay iyagu mararka qaar isku qaataan. Waxa uu sheegay inuu arkay bulsho sharaf ku nool, xeer jiritaankiisu ka weyn yahay boqortooyo, suugaan iyo hal abuur, iyo in geedka uu shirgooyo u yahay. Laakiin waxa uu Boortin noqday ninkii indhaha u furay gumaysatadii reer Yurub ee Soomaalida kala qaaray. Aqoontii uu faafiyey waxay heshay in quwadihii reer Yurub ay soo degaan geeska Afrika. Boortin laftiisu waxa uu noqday nin laba wajiilo ah, aqoon-yahan ixtiraam leh iyo danjire gumaysta u adeegaya.